arrintu wali waa ceyriin oo xukunka saako dhacay oo la soo gudbiyay maxkamaduna cidna lacag ma bixiso. halkan waa carwada ka oo lagu iibiyo agabka elektarooniga noocyadiisa kala duwan. waxa ay ku taalaa agagaarka Laamiraha Zobe 29kii bishii June ee sanadkan waxa ka dhacday dhacdo xanuun badan taasi oo ahayd in markaa koox hubeysan ay halkan dhac ka geysteen. kaamirooyinka aan libiqsan ee ku xiran afarta gees ee dukaankan ama carwadan ayaa markaa soo qabtay kooxdii halkan dhac ka geysatay. warbaahinta gal ganacsi oo ka hadasha arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa maanta soo booqatay kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida oo kiiskan gacanta ku haysay ay soo saartay maanta xukun kaasi oo raggii la sheegay inay ka tirsanayeen ciidamada ee xukun lagu riday isla markaana lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidan ah iyo sidoo kale inay bixiyaan lacag magdhow ah oo gaaraysa ku dhawaad 13,000 oo dollarka Mareykanka ah oo la siinayo raggii lahaa ama milkiilayaasha carwadan. waxaana maamulka carwo ka aan kala sheekaysanay xukunka dhacay sida ay u arkaan iyo sidoo kale muddadii uu xukunka soo jiitamayay waxyaabihii markaa iska bedelay habshaqadooda iyo sidoo kale hadii ay jiraan caqabado ay wajaheen. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin. horta ilaahay bay mahad u sugnaatay subxaanahu wa tacaala maantay guul nooga keenay dhacdadii ka dhacday halkan aan joogno dukaankan ka electronics ee ku yaala Laamiraha Zobe kaasoo ahaa dhac kooxo hubeysan ay u geysteen xilli galabnimada salaada casra. maalintii ku xigtay ilaahay fadligiisa waxa lagu guuleystay nimankii eedsanayaasha ahaa qayb kamid ah in la soo qabtay oo aqoonsaday. marka hore waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhammaan dadkii gacanta ka geystay sida tooska sida dadban kana qayb qaatay inay helaan ama nala wadaagaan tilmaamaha xogta iyo eedeysana markaas la tuhunsanaa. sidoo kale laamiyaha amniga ayagana ka qayb qaatay inay noo fuliyaan howlaheennii. markay ahayd 12kii bishan aan ku guda jirnay October kuna aadreed maalintii kiiska badda ayaa waxaan looga yeeray maxkamadda ciidanka qalabka sida wuxuu nooga yeertay xabsiga dhexe oo lagu qaadayay dacwada ninkii ku eedeysnaa falka dhaca dukaanka. waana la wareystay wixii aan xog haysanana waa gudbinay. saakay markaan goobteena shaqada nimid ayaan waxaan ka war helnay xukunkii inuu soo baxay iyo qaabka wax u dhaceen. runtii qaabka loo saaro xukunka waa qaab 100% aan yani ku qanacsannahay uguna mahad celinayno laamaha garsoorka ee dawladda. qaabka loo sameeyay waa laga yaabaa in xogaa ay jiitantay oo bishii 6aad 30keeda ama bishii 7aad aan ka soo bilaawno ilaa hadda in muddadaasna lagu guudi jiray processka ama baaristii ama ha noqoto. marka xukunkaas aad iyo aad 100% waa ku qanacsannahay ilaahna ugu mahad celinaynaa. run ahaantii cadadka ay soo gudbiyeen maxkamadda ay soo sheegtay oo waraaqadii qaan sheegadka ama infoskii carwo ka electronics ay gudbisatay iyo itemyada ka maqnaa hal shilna kuma sadarin hal shilna kama sadnimin. lacagta alaabta maqana waxay ahayd 12,945 dollar. marka sidii aan u sheegnay oo ilaahay nagu og yahay kitaabna gacanta loo galshay bay maxkamaddu noogu soo saartay. run ahaantii arrintu wali waa ceyriin oo xukunka saako dhacay oo la soo gudbiyay maxkamaduna cidna lacag ma bixiso cidna ma siiso laakiin waxay ku xukuntay eedeysanaha in lagu leeyahay hantidan inta uu ka bixinayana oo ahaan doono xabsi. marka ehelada iyo dadkii maxay ahaydaan dhibana yani ninka dhibka geystay ayaa laga rabaa si ay u tacaamulayaan. run ahaantii inaan ka helna dhiiranaan maahane waxa uu soo dhaca ma jirin. way iska jirtaa xaaladaha in habkii shaqada iyo waxyaabo badan laga bedelay laakiin waxa uu soo dhaca guud ah ma jirin. bal waxaan ku sii helnaba qof walba customer ah iyo qof walba Soomaali inuu nala dhimrinayo nimankii la dhacay. marka wax saameyn badan ah kuma san iman. Soomaalidan inta badan waxay aad isku gurmataa marka dhibaatadu dhacdo. marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed khaasatan gobolka Banaadir iyo macaamiisha dukaankaba si fiican bay noo garab istaageen. Cabdirasaaq Cumar warbaahinta gal ganacsi Muqdisho.